إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه يعني هيستو قرآن كصدر ولا هيست أيضا أنا بدم بأقول هذا. هيست أوجه أنا أبين الدم بتاعي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قارت مقاهي من الملكسة تكتان سكستو مقالك دين سوغاريا بالكاد قداون السلام channel شاعر شيكي ولكن شاعر شيكي كسر هذا برنامج كذا أنت برشيدو عن عاود كوجه يارنت أدولا يابلون تاس وكسابسن. لكن هاشو مركي لده أبجال إسكله. مجالات المقدسة أبجال بأسكله أبجال حكومة مجالات المقدسة كويش. وهيك ساحب أنتنا برنامج كوجين فلا سبسكرايب channel كي سيدو كله لا يلا دعم مقال كان سيو جار صاحب بدر. اوكي واضح هذا بدأ درسي على صعنا بريه ودم ببرها بالشدة وإسكا مشغول سنة ذو حقاد هويستي حفلة ما من قبل دي مركله عرب هالكرينا كيرادو همبريو حفلة ده أمس سنة جوريدا حلقة اللي أساسه وجدينيا. قبتا لو جهادين كجورسان لا. وجديني وحلا همبريو ملك ستاشوكتين سيدو كله رجل مدوك. sidoo kale maxaad kala socotaa muranka baraha bulshada hareeye ee lahaanshada magaalada Muqdisho qabiilkee ama qoladee iskale magaalada Muqdisho wahag markan waxaan rabaa Muqdisho inaan ka hormariyo koorintan Muqdisho arimeeda u galgelin waxa jirta bari u dambeeyay in fanaaniinta Soomaalida qaarkood ay heesaa ay soo qaadaan ay ku soo daraan wax runtii loo dul qaadan karin oo diinta ka hor imaanaya inkastoo ay soo dambeeyay sida aan idinku wada qarsanahay haddana waxa jirta in erayo سبحان الله aad looga yaab runtii ku soo darayeen eedaas waxa kamid ahaa oo baraha bulshada hadaleynta ka dhaliya baraha bulshada waqtiyada u dambeeyay ala oo soo dhaaf alamtara waxaan ahay malakumood ama qaalid boolida ku daysada sidoo kale adduunka iskiilo aaqiran kaga adka runtii oo lagu heesayo hees eriye heeso laga dhigayo arintaasi ama fanaaniintaasi waxa kamid ahaa dadkii loo heestay eedantaasi Sharmaboy xiddig wayaan dambe la holilayahay wuxuuna ka bixiyay raaligelin runtii isagoo aad aga xanaaqay dadka sida gaarka u buusan iraahday ama sida gaarka isaga personal ahaan oo taag waxaan yiri إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه يعني هيستو قرآن كصدر ولا هيست أيضا أنا بدم بأقول هذا. هيست أوجه أنا أبين الدم بتاعي. قرآن كم تكبر. هيست صدرن إلا دقيستا. oo maaragtay lagu jaasa aniga shakhsi aan waa qaada oo ku jira laakiin dambi aan arkaa صح marka inaad tiraahdo sida quraan heesta in awal ahayd maaragtay xadiis oo kale to aniga xadiiska qaldo kale aad quraankii wuxuu ku soo daray hees marka horta taas waxaan ka leeyahay waa taa oo waa ku qaldana in aan ku soo daro صح quraanka صح laakiin ku talagal waa quraan ee dadkan maaragtay quraanka ugu dhaxdar صح وما درين وما أنا درناها يقول حقري وما أنا درن صح ما قلته تذكر إنه يوجي أنت عقلي horta markii laga soo tago Soomaalinimo oo loo yimaado bilaadan kale dambi wala gali kara laakiin waxa xun in dambiga lagu sii adkaysto wixii markii lagu sheego waxa qaldiin waxa raganimo asii Sharmaboy kana qaladkaaga qirat oo aad Ilaahay u toobad keentid marka taas fanaaniinta Ilaahay aan isku dayayna laakiin bariyahan dab waa ay soo bateen xaqiiqatan fanaaniinta ama heesayaasha waaba ka sii daraysaa waxay noqonaysaa macnaha ereyada wax caadi laga dhigtay ereyada qaar runtii arintaas aad baa xumahay waxaan rajaynayaa fanaaniinta kale sida Sharmaboy kale in arintaas ka waantumaan si kuwa biri soo heesi doona ayaguna ereyada si ilaaliyaan ilaa maanta wixii wax caadi laga dhigo oo wax normal laga dhigo waxa waaye wixii wax caadi iska noqonayaan taasna waa gaf iyo dambi aad weyn markana Muqdisho okay koorsi intaan galo horta regal meel soo jooga xalay hambaryo hadaa daawanaysan waxaad leeyahay hambaryo runtii waxay dhigteen xaflada aad u qurux badan hadii aad Muqdisho hadii aad Nairobi Turkey meel badan baan arkayo xaflada aad ka dhacayeen waxaan leeyahay hadaa daawanaysaan hambaryo meel soo joogtiin calankiina waa kana kan waxaan rabaa inaan u soo jeesto arin runtii aad u la yaab badan ee baraha bulshada isku qabsaday arintaasi wax kala ma ahan waxa baraha bulshada ka socda dagaal ku aadan lahaanshaha magaalada Muqdisho waxa la isku haystaa Muqdisho unukale iyo Malehdin hadaba adigan idaawanaya hadii aan ku weydiin lahay magaalada Muqdisho yaa iskale maxaa ku jawaabi leeyahay magaalada Muqdisho yaa iskale hadaan ku iraahdo maxaad dhihi lahayd hadaba baraha bulshada waxa saacadihii u dambeeyay ama waqtiyada u dambeeyay ka socda qiiq aad u balaar dad badan ayaa dhahay Muqdisho anaga iskale dad badan ayaa lahaa Malehdin dad badan baa wax isku qabsadeen lahaanshaha magaalada Muqdisho runtii waa arin aad u la yaab badan in xilligan lagu jiro 2021 dhalinyaro
la rabay inay ku daysadaan SYL ama dadkii wadanka soo gacan qabtay inay arrimo qabiil dartood ay isku qabsadaan baraha bulshada iyagoo ku doodaya lahaanshaha magaalada Muqdisho hadaba intaan arintaas iyo xogahaas cidda magaalada Muqdisho sida aniga ila iskale intaan ila wadaagin bal markan klibida la daawada anigu nin qabyaaladiisa amihi balse runtan idin sheegaya ninkii nin qabyaaladiisa buu noqday nin xun buu noqday baad dhehaysid waxa doontaan dhaha magaalada Muqdisho abgaal ba askari abgaal xaquuq magaalada Muqdisho ku yeeshay magaalada Muqdisho ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay ka dhaxaysaa abgaal kaliya ma laha anigu kuma dhasheen magaalada Muqdisho haduu abgaal leeyahay magaalada Muqdisho deegaan ahaan waa la wada degan yahay laakiin lahaasho markii la dhaho abgaala iska leh hadaa diidiso diid hadaa yeelaysan yeel aday ku taala wareed aniga hal mid ah idin leeyahay maanta hadii qof oo abgaal ah uu dhaho caadada ana iska leh qofka yeelaysa ma jirto war hadoo dhogaalka ana iska leh qofka yeelaysa ma jirto waa may sidaas si la mid ah aysan beelweynta abgaal ee Muqdisho u leeyihiin war alxamdulillah ina dhahdana idinku wajibto hadaysan abgaal aysan dhihin Soomaaliya dhan anaga iska leh waag hadaba hada klibida siyaab kala daawateen ani ahaan Muqdisho yaa iska leh su'aashaas qof kasto oo la weydiino ka jawaab jeclahay oo wixii fikirkiisa ay taasoo u arko isagoo qabiil iyo cid gaar ah dana gaar fiirinin laakiin Muqdisho horta waa caasima waa magaalo ummad Soomaaliyeed aamisana waa hooyada ummadda Soomaaliyeed Muqdisho sababtoo ah Muqdisho waxa haysaa dad badan oo dhaqamo kala duwan leh meelo kala duwan ka imaaday waa meel aad u caasimad ah laakiin hadda sheekadu ma taagna Muqdisho caasimad miya mise ma aha laakiin waxa la isku haystaa Muqdisho iska anigoon jeclayn in qabiil sheego anigoon jeclayn in cid gaar carabka ku dhufto haddana waxaan rabaa Muqdisho markii laga soo tago Google-ka iyo Brabra iyo waxyaabaha baraha bulshada lagu qorayo markii laga soo gudbo Google-ka iyo waxyaabaha taariikhda aan salaysnay meesha lagu qorayo iyo markii laga soo gudbo fikir ahaan macnaha iyo ani ahaan waxa macnaha Muqdisho ila tahay iskale cid aan ku tilmaan waaleedaan dhihi karo Muqdisho horta markii taariikhda laga soo laabtay qaabkii ku dhismatay qaabkii ku markii laga soo tago waxa jirta dabcan Muqdisho waxa jira wadooyin halbowle ah oo magaalada kala qaybiya kuwaas oo laba gidi u kala qaybiyo tusaale kale markii la arko kale airportka ama meelaha madaxtooyada adigu qaybahan waxa jirta meelo main town la yiraahdo dadka Muqdisho jooga inta badan aad bay u garanayaan dabcan qofka garanay marka waxa jira laami dheer oo mara oo ilaa lambar 4 soo mara kadib mara wadadan Makal Mukarrama dabka saas u gudba laamigaas waxa gidigaas waxa ka ah waa qayb gidigaas waxa ka waa qayb ma aha markay qayb yihiin qabiil ma aha waxa ka xigay markay yihiin qabiil ma qabiil gooni ma degan laakiin iyada magaalada centerkeedi waa centerka kala baranta markii airportka iyo dhinacaas main townka ah wixii degan ee kula daarasho u degan ka hadli baa aniga ee adreesada ay qaldan yihiin laakiin waxaan ka hadlayaa wixii sida saxda ah dhinacaan markii wadadaas ay kala qaybsato dhinaca main townka ah ama magaalada xaggeeda bartamaha magaalada xigta wixii degan ee ilaa ay badda iyo biyaha markuu yimid dadkaas baa horta Muqdisho lagu tilmaami karaa oo ama biyaha ka soo galaan ama meel kale ka soo galaan dhinacaas badda xaggeeda xigay waxaan kale dhinaca gidigan ka xigta magaalada dhammaantood geeli baa ka soo dhamaaday markii geelooda ay soo gadgateen mayse ka geela ka soo dhaadheer dad baa qalad fahmay lahaa geeli bay soo gadgateen iyo wixii markii baadiye ka soo dhamaadeen bay magaalada imaan sidii ku soo degeen marka dhalinyarta waxaan dhihi lahaa waxaan la baraha bulshada ku daan joojiya aad u maasanta daasho muuqaalka wax shashada iyo muuqaal dambe xiiso